iyadoo muddaxileedka xiriirka kubadda cagta Somaliland gabagabo ku dhow yahay ayaa Cabdirasaaq Maxamuud Cismaan Cabdirasaaq Birle oo ka mid ah bahda ciyaaraha Somaliland oo halkan ka diray fariin ku socota dhalinyarada ciyaaraha Somaliland. waxaanu dareemanaa quuxa ama saxwaxanka ka jira inay taagan tahay maanta xilligii la dooran lahaa xidhiidh ama ay taagan tahay waqtigii la doortay maanta laga joogo muddo 4 sano ah. waxay dhalinyaradu isweydiinaysaa ama tabasaa ama tamaniyaysaa muddadii xidhiidhkaasi hayay maxaa qabsoomay maxaase qabiyoobay waatu su'aasheedu ay dul hoganayso cid kasta oo aqoon ciyaareed leh cid kasta oo lagu tuhmayo ciyaaro xilli ay jirto kala qaybsanaan dhanka kooxaha maamulka iyo ciyaartoyda Somaliland ayaa Cabdirasaaq Birle isagoo ka hadlaya waxa uu yiri waxaanu dareemanaa inaynu maanta kala qaybsannahay oo xaggii maalintii aynu dooranay oo kala taagannahay oo kooxihii lagu tuhmayay ciyaaraha ee lagu tuhmayay muddakarnimada ee lagu tuhmayay inay ehel u yihiin ciyaaraha ay kala qaybsameen oo maanta wataan midba dhinac watuu leeyahay campaign iyo ololan ka dhex wadaa taasi ma ahan maanta tii munaasibka ku ahayd maanta ma taagna xilligeedii iyo xaaladeedii ma joogto waxaanu joognaa maanta xilliga aynu gacmaha isqabsan lahayn ee la isweydiin lahaa war ciyaaraha Somaliland maxaa u dana si loo helo dadkii loogu talagalay ehelka kubadda cagta Somaliland ayaa Cabdirasaaq waxa uu sheegay in la doorto dadkii loogu talagalay isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri bari toolana intay soo saartaan inaan ehel sports iyo meel u gaari karaya sportska gaadhsiinay in la cusho barina intii figa la soo tubo la cabaado oo maqaaxiya laga cabaado oo la yiraahdo waxa loo qaban laayay dhalinyaradii tartan la'aan maantana iyagu ay gacantooda ku tirtirayaan cidii ehel sportska u ahayd anu waxaan fariin u dirayaa dadka muddakarka ah ee ciyaaraha ku dhex jira intaynu ka baxnay campaign-ka iyo ololaha iyo hebel wata iyo koox hebel baa koox la jirta musharaxa aynu dooranay cidii ehel waa nin walba uu garanaya cidda maanta marxaladda ka saari karaysa xaaladda iyo xilliga ku jirta ayaa ka saari karaya yaa loo xulaa yaa xirfadeedii leh yaa matali karaya dhalinyarada kala duwan ee duruufaha badan ku samray ee aan agab haysan ee aan kubada haysan aan cid gacan qabata haysan ee nin kastaaba dhinaciisa u daalaa dhacayo maanta yaa kala gurman lahaa xaaladda oo maanta kala dabaalan lahaa marxaladda ay marayaan in loo xulo bay ahayd laakiin waxaad moodaa in dadkii hormoodka u ahaa ciyaaraha lagu tuhmayo lalahaa waa eedu ay yihiin cudurka u weyn ciyaaraha cagaa haysta hagardaamo ay ku noqdeen ciyaarihii xiriirka kubadda cagta Somaliland ma yahay mid u dhameystiran wax kastoo lagu yaqaano xidhiidhada caalamka iyo kuwa la midka ah isagoo Cabdirasaaq Birle ka hadlaya waxa uu yiri ta kale la isweydiinaya waxa weeye war xiriirkeenu ma u dhisay sida xidhiidhadii caalamada ma haysta agabkii guri ma leeyahay waxyaalihii xiriir u baahnaayo dhan diyaar ma yihiin misha meesha waa iska sidii kala keenaana wuxuu noqonayn ku aan waxba tarayno meesha ku soo hungooba taa in laga fikiray ahayd oo la isku yimaado oo gacmaha la isqabsado oo laga fikiro kuwa dambe iyo akademiyada kuwa ku jira inay helaan bal cidii ehel u ahayd ee marxaladda ciyaaraha ka saari karaysa soo nooleynta kubadda cagta Somaliland laga soo bilaabo xagga hoose sida kooxaha heerka 2, 3 iyo 4 isagoo Cabdirasaaq Birle ka hadlaya waxa uu yiri ciyaarahana waxaynu u naqaanayo kaliya waxaad moodaa inaynu naqaano dadka eeduha waa halkii u sarreeyay waa isweydiino waa halka u sarreeyay la hiigsadaa laakiin halkii hoosaa dhimatay halkii hoosaa baaba dhalinyaradii hoosaa dib u dhac fara badan ku yimid oo cid allaaliya cid gacan qabata aan jirin marka waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsano inaynu isku nimaadno waxaad moodaa kooxaha eeda dhexdooda in xirfatan ka jiro oo aan koox ciyaar saaxiibtinimo la ciyaari karin oo aan garoon isku balansan karin oo moodo dhexdooda in colaad tahay marka inagu markaynu saxno inuu dhexdeena saxno ayay hagaagaysaa xagga sare laakiin inuu inagu dhexdeena kala jeedno in kulba mid kala ololeynano wax allaaliyo wax hagaagaya ma jiro ugu dambeyntii Cabdirasaaq Maxamuud Cismaan Cabdirasaaq Birle oo ka mid ah bahda ciyaaraha Somaliland ee caasimadda Hargeysa ayaa halkan ka diray fariin ku socota bahda dhalinyarada ee dhanka ciyaaraha ee Somaliland waxaanu isagoo fariintaas u diraya oo halkan ka yiri ragga ehelka ciyaaraha oo ana waxaan kula talin lahaa fariintaydan u diraya war waxa la yiri ku tuhmayaa in tihiin dadkii miisaanka ku lahaa sportska ka daayay campaign-ka inanka yar siida eed leedahay hebel code shalay toole markii tartanka stadiumka lagu qabtay kubad buudeeyay oo dress buudeeyay oo baasiin iyo basur raacu deeyay inanka yar saa u baahaneed maanta leedahay musharax hebel code muxuu ciyaar ka faansi marka waxaan leeyahay waxa la iska daayo gacmaha aynu isqabsano aynu ka tagna codaynta madhalayska iyo ololaha joogtada ee dhinac haysan cidii ehel ee maanta halka u qalanta
aynuu soo saarno aynuu xulno marka aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axmed tee qaran wararka malcab magaalada Hargeysa.